السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا الله كحرن جنال كينا جنال كحكمتيو اي يوتيوب daawadayaal maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa dad lagu xukumay xukumo cajiib ah runtii ma aha xukun dil ah ama toogasho ama xabsi daayin laakiin waa xukumo la yaab leh intayna muuqaalka ugu gudagelin fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar waad ku mahadsantahay ninkan aad hadda arkaysa waxaa lagu xukumay in uu isqaawiyo dharkana uu saarto kadib markii uu isku dayay inuu kuusado gabadh 8 sano jirta booliska ayaa ku qasbay in uu isqaawiyo kuna mara qaawani isagoo haba yaraatee wax dhar aan xirnayn magaalada ilaa uu ka tegay saldhigga booliska maxkamad ku taala waqooyiga Sacuudiga ayaa ku xukuntay nin markii uu nin kale ugu hanjabay xabad in uu isagu keligii nadiifiyo xabsiga weyn ee waddanka muddo dhan usbuuc maalintii 5 saac waxa aana jeeda lagu jiiday 300 oo jeer isagoo laguna ganaaxay lacag dhan $3,000 Mareykanka weliba waxaa la kala doonsiiyay in uu xabsiga galo ama in uu nadaafadiisa qaabilo waxa uuna doortay choice-ka labaad oo ah in uu xabsiga nadiifiyo muddo dhan usbuuc maalintii 5 saac wiiliga gabadh teenager ayaa lagu soo eedeeyay in ay timaha ka xireen gabadh yar oo 3 sano jirta mar ay fadhiyeen hoteelada caalamiga ee magaalada ay ku noolaayeen waxa uuna garsooruhu ku xukumay xukun ah iyaguna in ay iskaga xiraan timaha maxkamadda dhexdeeda Milicia Sweni waxaa lagu soo eedeeyay in ay ku xadgudubtay xuquuqda xayawaanada markii ay daryeeli weyday fardo ay lahayd iyadoo aan u muujin wax daryeela muddo dhan 4 bilood waxaana lagu xukumay xabsi laakiin si loo tijaabiyay in ay darsi ama cashir ka baratay waxaa lagu xukumay in ay cunto oo keliya biyo iyo rooti inta ay dhammaysanayso ciqaabteeda xabsiga koox arday dhigata high schoolka ayaa jajabisay baabuur loogu talagalay ardayda in ay ku raacaan ama ay raacaan mar ay u baxayeen fasax ama dalxiis waxaana lagu xukumay in ay ardayda dhammaantood kafaalo qaadaan oo jeebkooga isticmaalaan maadaama ay iyagu sabab u ahaayeen in ay ardaydu tegi weyso ama u bixi weyso dalxiiskii loo qorshay waxaana lagu soo eedeeyay Michelle Murray in ay 35 bisadood oo yaryar ah ay kaga tagtay beerteeda gurigeeda xaggeeda dambe ku taala oo 9 ka mid ah bisadahaas ay u dhinteen gaajo iyadoo Michelle qiratay dambigeeda oo tiri ma awoodo in aan waxaasoo bisadaha kafaalo qaado waxa quubahan ciqaabaha looga dhigay in ay habeen ku dhammaystiran ku noolaato mid ka mid ah kaymaha ku yaala magaalada iyadoo ayna haysan wax miciina garsoore ayaa ku xukumay nin in indhaha laga xidho maadaama uu ku xadgudbay ama uu jabsaday dukaan markii gabadh lagaga shubay baal indhaha ka oysiisa ayaa waxaa la kala doonsiiyay in loo xidho dambiilaha ama in ay ka jarato ciqaabteedii waxayna dooratay in ay ka jarato maxkamadda dhexdeedana waxay kaga shubtay indhaha bahashii lagaga shubay oo kale Daniel iyo Alves waxay xadeen 250,000 oo loo ururiyay tabarucaadka lagu caawinayo dadka masaakiinta waxaana lagu xukumay in ay qabtaan ama ay qaataan board ku qoran tahay waxaan xaday 250,000 oo loo ururinayay tabarucaadka loogu talagalay dhibanayaasha dadkoogii laga yaabo daawada inaad u aragtay inay dhib yar tahay laakiin Daniel Mireles wuxuu sheegay in uuna la helin ama uuna helin saaxiibo dhacdada ka Victoria Piscon waxaa lagu soo eedeeyay in ay raacdo gawaarida taksiga magaalada kadibna ayna bixin wax lacag ah maxkamaduna waxay ku xukuntay in ay gaari tagaasida magaalada kamid ah ay raacdo 30 mayl kadibna loo xisaabiyo lacagta intaasna ay bixiso lacagta ay noqoto xisaabteeda daawadayaal muuqaalka maanta intaasoo ku eegyahay fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar waa intaan ku kulmi doono video lamid ah peace